Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay xaqiiqo la yaab leh oo xiiso badan, inta badanna aanay dadka dunida ka warhaynin, oo la xidhiidha waddanka Jarmalka iyo dadkiisa. Waddanka Jarmalka oo ka mid ah dalalka adduunka ugu horumarsan dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, aqoonta, awoodda siyaasadeed iyo militariba, ayaa ka mid ah dalalka qaaradda Yurub ee taariikhda weyn dunida ku leh. Muuqaalkan kooban waxaan ku eegi doonaa arrimo xiiso badan oo aad ogaalkaada ku darsan doonto oo ku saabsan waddanka Jarmalka. Waxaynay kala yihiin: tirada shacabka waddanka Jarmalka waxay maraysaa in ka badan 81 milyuun oo qof ah, waxaana lagu tariyaa waddanka Jarmalka dalka ugu dadka badan dowladaha ku bahoobay Midowga Yurub. Badka iyo dhulka ku fadhido caasimadda waddanka Jarmalka ee Berlin waxay 9 jeer oo ku laabantaa oo ka weyn tahay badkay ku fadhido caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris. Waxayna Berlin tahay magaalada labaad ee ugu bareejyada badan qaaradda Yurub, marka laga yimaado magaalada Bontokay ee dalka Talyaaniga. Xasuuqii caanka ahaa ee loo yaqaanay Holocaust waxaa dalka Jarmalka iyo Austria ay noqonayaan 17 waddan ee looga aqoonsaday xasuuqaasi koowaad fallo ee ka dhan ahaa aadamaha. Arrinka la yaabka leh, waddanka Jarmalka wax ciqaaba ama sharci ah ugama yaalo maxbuuskii ka baxsadaa xabsigii, kaasi oo haddii suuqa uu marayo ama meel lagu arko isagoo ka soo baxsaday xabsiga, laguma celin karo, wax sharci ahna ugama yaalo oo lagu ciqaabi maayo. Majalladii adduunka ee ugu horreysay ee laga soo saaro marka laga yimaado wargeysyada kale ee caadiga ah waxaa laga soo saaray markii ugu horreysay dalka Jarmalka, waxayna soo baxday sanadii 1663. Dalka Jarmalka marka gaadhiga oo marayo jidadka waaweyn ee xawaaraha lagu socdo, haddii shidaalku uu ka dhammaado, wax ciqaabaya ma laha ninka wadaha ah oo sharci kagama yaalo. Si ka duwan sida dalal badan oo hore u maray oo ay dembi tahay in gaadhigu kaaga shidaal beelo jidweyne agtiisa. Intii u dhaxaysay sanadii 1989 ilaa 2009 waxaa dalkaasi Jarmalka albaabada la isugu dhuftay oo la xidhay in ka badan 2,000 oo dugsi oo waxbarasho ah kadib markay yaraatay tirada ubadka dalkaasi. Waalidiinta Jarmalka oo iskaba daayay inay ubad dhalaan ama tirada oo aad u yaraatay ayaa sababtay in ubad yaraani ay ka dhacdo waddanka Jarmalka. Tirada dadka Jarmalka ayaa si weyn hoos ugu dhacaysa sanadihii ugu dambeeyay, waxaana celcelis ahaan 10kii sano ee ugu dambeeyay ee 2 milyan oo qof ah kaga dhimanayeen tiradii dadka Jarmalka ee asalka. Marka laga yimaado dadka sawgalootiga, magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaa loogu magac daray hamburgerka laga cuno maadaama dadka magaaladaasi ku nooli ahaayeen kuwa soo saaray farsamaynta hamburgerka la cuno. Sanadii 2014 waddanka Jarmalka waxa uu joojiyey lacagihii fiiga ahaa ee laga qaadi jiray waxbarashada jaamacadaha. Xataa dadka ajaanibka ah ayaa laga dhaafay oo bilaash looga dhigay aqoonta jaamacadaha. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, sanad walba waxaa dalka Jarmalka laga soo saaraa in ka badan 5,500 oo qombolood ama walxaha qarxa oo ah hadhaagiga hubkii lagu ridayay dalkii Jarmalka ama lagu isticmaalay dagaaladii labaad ee adduunka, taasoo celcelis ahaan ka dhigaysa in dalkaasi Jarmalka maalin walba laga soo saaro ugu yaraan 15 qombolood. Sharaabka Fanta oo loo yaqaano waxaa lagu bilaabay in laga isticmaalo markii ugu horreysay adduunka
dalka Jarmalka kadib markuu yeeraaday midhaha laga sameeyo sharaabka Coca-Cola oo wakhtigaasi dunida aad loogu caabi jiray, balse aan wakhtigaasi ka hor laga aqoon Fanta. Ma ogtahay in ciyaarta miiska ee tennis inuu hindisay nin Jarmal ah, markii dambena ay ku fiday ciyaartaasi dalalka Aasiya, gaar ahaan Jiina. Dagaalkii labaad ee adduunka markuu socday, guri Jarmalka ku yaala oo ay ku shirayeen boqorkii Ingiriiska, qaysarkii Ruushka iyo imbaraatorkii Jarmalka, waxaa ku habsamay gantaal diyaarad laga soo tuuray oo dhulka lala simay gurigii ay ku sugnaayeen, balse waxaa la yaab noqotay inay dhammaan ka badbaadeen saddexdii hogaamiyeba. Xiddiga kubadda cagta ee Jarmalka ee Mesut Ozil waxa uu tabarucaad ku bixiyey lacag dhan 3,000 oo euro oo ka mid ahayd lacagta uu ka helay habeenkii koobka adduunka ay qaadeen 2014, isaga oo lacagtaasi siiyey 3 carruur ah oo loo sameynayay qaliin caafimaad ee dalka Brazil ee koobka ka socday. Dagaalkii keli ahaa oo loo yaqaano duulaankii Stalingrad ayaa ka badan inta dalka Mareykanka kaga dhimatay dhammaan intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Dalka Jarmalka waxaa jira nidaam loo raaco magac bixinta ubadka yaryar markay dhashaan. Sanaantii ay isticmaali jireen Naasigii Jarmalka, wakhtigan dalkaasi waa ka mamnuuc in la isku salaamo. Sanad walbana dalkaasi waxaa lagu xidhxidhaa dadku salaamaya sidii Naasiga ahaa, oo gacanta la fidiyo ee sida loo yuubo ee dadka lagu jeediyo. Waxaana dalkaasi ka yaala sharci ah 3 sano oo xadhiga qofkii lagu qabto isagoo dadka u salaamaya sidii Naasiga. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida.